gaadiid sideed baabuur oo baabuurta qoryaha la saara ah qoryaha saaran yihiin iyo hal ambalaas iyo hal booyo 10 kaas baabuur oo ku wareejinay galmudug oo wakiil ka yahay dawladda madaxweynaha galmudug iyo shacabkeeda oo wakiil u yahay Ahmed Macallin Fiqi wasiirka amniga labada qodob bay ahayd waxa uu runtii noogu soo dhamaaday si qurux badan oo farxad leh oo aad iyo aad aanu soo muujinay kalsoonidayadii iyo wada jirkayagii inuu horeyna u jiray haddana aan sii xoojinayno naf iyo maal aan wada galayno dagaalka argagixisada anigu khawaarij waa ka daayo khawaarij waxa la yiraahdaa dad muslimiin oo inxiraaf diini ku dhacay kuwana waa maafiyo kharaabin ah oo waxa daliil u ah waa dhageysan jirtay halkan aan ku tooganay oo qaa'imiinta dalka magaalada dad ku leen jiray waxay ku hadli jireen inay diin la'aan yahay waad ogeen marka anigu dad diin arageed leh uma nisbeeyo waxa iraahdaa waa maafiyo cusub oo baxday magaciisa dunka daafiisa kala timid dalka Soomaaliya dawladda ee aqalteed bay isku heshay laakiin waxaan filayaa in qorraxdii ay qorraxdoodii dhacday oo waqtigoodu ku gabagabeeyay waxaa la rabaa marka dadka Soomaaliyeed qof kastaaba inuu ka fakaro hadduu adiga maanta ka maqan yahay walaalka uu cunaya oo ku maqan yahay inaad intuusan ku soo gaarin aad aduguna meeshiisa ugu tagto waxaa la rabaa ganacsatada aaminsan oo meelaha nabadda jooga aaminsan shabaab inay maaragtay ay inta xoogagooda u tuuran si noolaanayaan xoogaaga aad tuuraysana cadaab baad ku kasbanaysaa adigana aakhir jeegadu ka bireynaya mahad celin u soo jeediyo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Dani iyo madaxweynaha dawladda Galmudug mudane Ahmed Kaariye Qorqor oo shirar isdaba jooga ku galay magaalada Muqdisho toddobaadkii la soo dhaafay ayaa keenay natiijada maanta ah inaan la wareegno gaadiidkan 10ka ah oo kulli loo wada isticmaalayo hawlgalka ka socda koonfurta mudug iyo galgaduudba meel kasta argagixisadu ay joogto wax badanna gaadiidkani wuxuu ka tarayaa iyo hubkiisa saaran waxay ka tarayaan sidii argagixisada soo duushay loo jabin lahaa sidii argagixisadu aysan u qaadan sidii horay ay u qaadan jirtay in qolaba mar ay dubato ama inta weerar ku soo qaado ay kaligeed la dagaalamaan maanta wuxuu gaadiidkani muujinayaa garab istaagana wuxuu muujinayaa in loo midoobay argagixisada in la iska celiyo mana islahay argagixisadu way ka awood badnaan kartaa haddii Galmudug iyo Puntland ay isku kaashadaan argagixisadu way ka awood badnaan kartaa dhihimayo waxaan u jeedaa argagixisadii oo jabtay argagixisadii dadka reer mudug iyo dadka labadan maamul ku nool oo nabadgelyo ku seexda argagax la'aan ku seexdaan u jeedaa ififaalo fiican ayaa muuqda waxaan rabaa inaan leadershipka iyo hoggaanka labadan dawlad goboleed aan uga mahad celiyo inay garteen in maaragtay argagixisadaasi aysan qaraabo lahayn ehel lahayn gobol gaar lahayn ayaguba gobolka isaga yimaadeen ayna tahay in la dagaalanka iyo hawsha lagu hayo in meel isuga soo wada jeesto waxaan anagu maalmii labadii bilood oo la soo dhaafay joognay furinta hore waxaan aqinaynaa in argagixisada khasaare xooggan uu ka gaaray 250 ku dhawaad halkaas ay uga dhimatay labadii bilood dagaalkii ahaa xoogaa yar bay maalin dhaweyto moral ku dhisteen baabuur yar oo maaragtay bacaad gashay oo ay gacantooda gashay ayay moral ku dhisteen laakiin maantay waxaan aaminsanahay moralku ka jabayo markay arkaan gaadiidkan cusub iyo qoryahan isdul saaran iyo ciidanka daba socda intaba in moralkoodu uu jabayo waxaan leenahay yaan loo liicin dadka reer mudug dadka reer galmudug dadka reer Puntland dhammaantood in loo wada midoobo argagixisadaasi inaan gacanta wada saarno waa wiilal yar yar oo baahan oo gaajaysan oo been loo soo sheegay oo fikir qaldan laga soo dhaadhacsiiyay